بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد المجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دواada janalkeena gacmo furan iyo qalbi saafi ah. waa idin soo dhaweynaya Soomaali weyn, waan idin salaamaya meel walba joogtaan. maalin wanaagsan. maanta waxaan ka hadlaynaa shakhsiyadda borderline ayaan ka hadlaynaa. qofkaas inta badan waxay soo baxdaa calaamadaha shakhsiyadaas qofka markuu xoogaa teen aging ka noqdo iyo wixii kasii waaweyn oo qof weyn markuu noqdo ayaa qofka ay soo baxdaa calaamadihiisa. caruurnimada laguma ogaado. waa qof isbabedela oo maxay ahaatay moodkiisa uu isbabedela si dhaqsi ah. weliba hadda waa faraxsan yahay, hadhow waa careysan yahay. waa qof aad uga baqa in laga tago. wuxuu aad uga baqaa ama ay aad uga baqaan in laga tago. mar walbo waxay ka raadiyaan indhaha lamaanahooda ayay waxay ka raadiyaan ixtiraam iyo jaceyl iyo qadarin hadday tahay. qofkaasay ka raadiyaan. mararka qaar waxaa arkaysaa haddii dadkaas ay yihiin dadka borderline-ka ah, xiriiradooda in badan inay yihiin xiriir qaldan inay galaan, ay sameeyaan xiriir caatifadeed oo aan deganeyn, oo aan caqli ku saleysnayn, oo caatifad ku saleysan. caatifad ha ku saleysnaada haddana aan kala saareynin sax iyo qalad aan kala saareynin ayay sameeyaan mararka qaar. dad waxaa waaye hadda waa careysan yihiin, waa qeylinayaan, hadda waa degayiin. dhibaatada ugu weyn waxaa waaye naftooda ayay ku sameeyaan. ayaga naftooda ayay aada u dhibaateeyaan. mar walba waxay jecel yihiin inay attention ay helaan. attentionkaas ay helayaan raadintiisa mararka qaar waxay keentaa in naftoodii ay dhaawacaan. haddii xataa ay dareemaan mar walba waxaa u muuqanaya cabsi ah lamaanayaashooda inay ka tagayaan. u muuqda cabsi ah in qofkan uu ka tagayo u muuqda. markaasaa naftoodii mararka qaar ay dhaawacayaan. mararka qaar waxaa isdilaa, waa isyeelaa, waa isdilayaan. mana isdilayaan laakiin waa isxanuunjinayaan mararka qaar in jirkoodii ay jexjeexaan, dhiig ay ka keenaan. haddaa ila joogi weys, haddaa kan ii samayn weyd, yacni nooc waxaa waaye cilaaqadooda sax ma noqoto. haddii xaaskaaga ay tahay, daraasadaha ee culmaa nafsiga ay sameeyaan waxaa lagu sheegay in gabdhaha dumarka ay u badan yihiin shakhsiyadan. ragga iyo dumarka shakhsiyad walba waa lagu kala badan yahay. shakhsiyadan inay dumarka ay ku badan yihiin, raggana way leeyihiin, laakiin dumarka anaga ku badan sida ay sheegeen culmaa nafsiga sida ay sheegeen. marka haddii xaaskaaga ay tahay waxaa waaye waa kaa tegayaa, amba waa xiriirka waa dhammaaday, xataa ma ogolaanayso xiriirka waa dhammaaday, ma dhammaan karay ku leedahay. cabsida ugu weyn ee qabto ayaa markii horeba wuxuu ahaa in maalin uun ag tegaysid. marka waxaa bilaabanayo ishaysasho, isla haysiin, in qofkii uu isku kaala haysiiyo ayaa imaanaya, oo isku kaa dhadhajiyo. oo bini aadankana hadda qof walba rag iyo dumar qofna ma jecla soo maha. isla haysiin, isku dhadhajin. gabaran xataa adoo gabar haddii seegaa uu ku dhaho ma bixi kartid, ma samayn kartid, ma iga fogaan kartid. xiriir noocaasad rabtaa inaad samaysid oo waxyaaba aad alifaysid. oo maanta qofkii waxaa waaye xiriir samaysanoo noqonaya. waa dad aada isku babedela oo aada isku babedelaan. dadkan waa dad isbedelka oo muudka maahan, oo hadduu faraxsan yahay hadhow waa careysan yahay. xataa maahan qalad yar ayuu adiga dhan waxaa waaye oo go-aankaaga qaadanaya. wax yariis oo u sameysay oo adiga dhan waxaa waaye kugu weyneynaya. inay isbabedelaan ayaga ra'yigooga xataa waa isbabedelaa. nolosha waxay ka aaminsan yihiin waa isbabedelaa. hadafka ay leeyihiin waa isbabedelaa, dhaqsiyo isku babedelaa. mararka qaar waxaa isbabedela qiyamkooda iyo akhlaaqdooda xataa way isbedeshaa. mararka qaar waxaa laga yaabaa inay sameeyaan tanaasulaad, inay sameeyaan xiriirka qofka kala dhexeeya, qofka ay jecel yihiin oo lamaanahooda ah, amba wiil ahaado ama gabar ahaado, caamatan inay sameeyaan tanaasulaad inay sameeyaan ayaa dhacaysa mararka qaar. oo qofkan ku raaligelinaya yaysan iga tegin. inay sameeyaan xadgudub, yani xadgudub oo in laga gudbo xuduud. waxaa jirta aan laga gudbi karin sooma, in xuduudda ay gudbaan oo xiriiro qaldan ay sameeyaan ayagoo ku raaligelinayo lamaanahooda. naftooda ma ahan
waxay aad u weyneeyaan lamaanayaashooda aad u weyneeyaan qofka ay jecel yihiin naftooda muhiim ah qofka ay jecel yihiin aad ugu muhiimsan naftaada inay muhiim ahaato waa qofka aad jeceshahay muhiim inuu ahaado waaye laakiin mar walbo naftaada ayaa ka muhiimsan qofka adiga aad jeceshahay maha inaad naftaada ay tahay darajada labaad darajada saddexaad ay tahay qofkan uu koow yahay maaha in aad u tanaasuleysid waxyaabo oo qayamkaaga amba akhlaaqdaadii amba diiniyan xataa mararka qaar waxaa laga inay sameeyaan waxyaabo ay xadgudub weyn oo inay sameeyaana laga yaabaa ayagoo raali gelinaya lamaanahooda si uusan kaga tagin mar walba waxaa waaye waxay aaminsan yihiin qofkan inuu ka tagaayo qofkan inay ka tagayso mar walba waxaa waaye cabsidaasaa ku taagan marka waxay sameynayaan wax walba ay sameynayaan wax walba ay sameynayaan ayaga isleeyihiin qofkan haddaan waxaan u sameeyo waxaa waaye raali u iga noqonaya mararka qaar waxaa arkaysaa in haddii ay gabar ay tahay waxaa laga yaabaa inay sameyso gogol dhaaf maxaa la xiriir xaaraan inay sameyso maaha in la qabo ayadoo la qabinoo yani ayagoo isguursanin weli inay xiriir ay sameeyaan ayadoo raali gelinayso lamaanihii si uusan uga tagin wax walba asaa kala muhiimsan waxay aad u weyneeyaan lamaanayaashooda aaday u weyneeyaan weyn waay wax weyn ayay ka dhigaan mar walbana waxaa ku beeran cabsi ah qofkaani waa kaa tagaaya waxaa arkaysaa hal eray in ay dhan isku bedelayaan hal eray inay ku faraxsanaanayaan hal eray qofkii haddii wax badan xataa wanaag uu idinkala dhexeeyey qofka bini aadan waaye oo maanta waxay idinkala qabtaan waxaa la rabaa wanaaggii inaad xeerisid oo hore aqoontii iyo barashadii dhexdeed inaad xeerisid maya waxay bilaabayaan caro ayay bilaabayaan waxay bilaabayaan qayl ay bilaabayaan problem ay bilaabayaan inaadan waxba sameynin oo aadan waxba ahayn oo wixii hore dhan waxaa waa habaan waay hal wax amba hal eray haddana waxaa waaye waa ku degayaan way qaadanaa waa dad adig isbabedela oo aad isku babedela waa shakhsiyadaaniti borderline-ka dad aad isku babedela waaye dad waxaa waaye istiqraar maxaa la dhahaa waxaa ka maqan deganaan caatifadeed malaha weliba caatifadeed malahan mar walba waxaa ku beeran cabsi mar walba waxay aaminsan yihiin inaan ayaga la jecleen mar walba waxay aaminsan yihiin inaan ayaga la rabin indhaha dadka ayay waxay ka raadiyaan raaligelin ayay ka raadiyaan weliba dadka ku hareereysan ama dadka ay shaqada haddii ay tahay dadka adiga u dhow mar walbo waxay aaminsan yihiin inaan la jecleen mar walba way dhici kartaa inaan lagu jecleen laakiin muhiim ah soo maha inaad diirada aad saartid malay jecel yahay malay necab yahay muhiim waxaa waa ani nafteeda say u jeclahay naftaada say u aragtaa waay marka ayaga muhiimada waxaa waaye tan dadka waxaana keenayo in badan shakhsiyadan waxay ka imaataa koriimada markay yaraayeen ayay ka imaataa caruurnimada ayay ka imaataa shakhsiyad walba qofka caruurnimadiisii ayaa saameyn ku leh waxaa dhici karta in hooyadii aabbihi ay kala tageen in asoo yar qofkii lasoo dhibaateeyey aad loo ciqaabi jiray waxaa waaye koriimo khaldan oo lasoo kulmay ayaa koos gareynayo ayay dhahaan culmaa nafsiga in qofkii uu shakhsiyadaha qaar shakhsiyada waxaa jira oo qalafsanaa jiro aan wanaagsaneyn oo runtii aan ficneena jiro sooma sida shakhsiyadan oo kaleenta borderline-ka waxaa waa inay naftooda dhibaateeyaan dhibaatada ugu weyn waxaa waa naftooda soo gaarto maanta o dhan waxaa waay ma degana haddii ay dareemaan in xiriirkii lamaanahooda khatar uu ku jiro wax walbay sameynayaan mararka qaar waxaa waaye naftooda aada u dhibaateynayan waxaa laga yaaba in xididada gacanta iska jaraan isdhiijiyaan ayagoo isleh bes waa aniga mana aha inay isdilayaan laakiin waxay rabaan mar in attention dadkii ay siiyaan oo la dhaho qofkan qof madluum ah waaye qofka marka wax walba waxay u sameynayaan inay attention geliyaan marka dad noocaas oo qeyb ah annaga waa leenahay oo bulshada Soomaaliyeed sooma waa aragnaa social media way ku jiraan oo baahan cilaaj ay leedahay laakiin waqti dheer ay qaadanaysaa